Magaalada sida burbursan aad ujeedaan waa magaalada Qasa ee wadanka Falastiin kadib markii dowladda Israa'iil ay ka geysatay duqeyn cirka ah oo aan kala joogsi lahayn. Sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka Falastiin, waxaa ku dhintay in ka badan 3,785 in ka badan oo ka mid ah ay yihiin caruur, wax ka badan 1,000 ay yihiin haween. Magaaladii waxay isku beddeshay burburka hoostiisana waxaa ku jira dad meyti ah oo ilaa iyo hadda aan laga soo saarin. 7 Oktoobar dagaalkii dhacay kadib duqeyntii bilaabatay ilaa iyo hadda waa socotaa. Inaga Soomaali ahaan waxaanu qaban karno ma ay jirto aan ka ahayn inaan duceyno in Ilaahay uu ka kor qaado dhibaatadan iyo kurbadan haysata oo Ilaahay ugu beddelo nabadgelyo iyo dalkooda oo madax bannaan.